Ma doonaysaa inaad guulaysatid? Ma jeceshahay inaad guul gaartid? Ma isweydiisay wadada loo maro guusha? Haa, waxaan doonayaa inaan mar kale ku xasuusiyo wadada loo maro guusha oo laga yaabo inaad horay u maqashay. Kow, ha ka baqin fashilka. Fashilka ayaa ah faa'iidada guusha. Soo mar walba inaad ogolaataa inaad fashilanto, kadibna waxaa kuu fududaanaysa inaad guulaysatid. Qodobka labaad, qorshe yeelo. Qorsheyso waxaad doonaysid. Kala hormari waa inay ku qorsheysiin waxyaabaha aad jeceshahay inaad guul ka gaartid, adigoo kala hormarinaya sida ay u kala fudud yihiin. Qodobka koowaad, haddii aad ku guulaysatid waxaa kuu fududaanaysa inaad kuwa kale ku guulaysatid. Sidaas daraaddeed waa inaad ku qorsheysan tahay una kala hormaraysaa sida ay u kala fudud yihiin. Qodobka saddexaad, isdhiirigeli. Mar walba waa inaad isdhiirigelisaa. Waa inaad adigu nafsadaada dhiirigelisaa. Waa inaad waxyaabaha ku wanaagsan tahay waxyaabaha qaladayna aad maaragtay u samartaa. Waxyaabaha ku guulaysatana waa inaad isku dhiirigelisaa. Qodobka afaraad ayaa ah rajo yeelo. Rajo wanaagsan yeelo. Ilaahay ku kalsoonow. Aamin inaad guulaysanaysid. Aamin inaad guulaysanaysid. Rajada ayaa waxa la yiraahdaa waxay la mid tahay cusbada kuma baahi tirto, laakiin waxay ku macaanaysiisaa cuntada. Saas daraaddeed rajadu waxay ka mid tahay waxyaabaha guusha aad ku gaari kartid.